Assalaamu calaykum asxaabta. Waxaan horey uga soo hadalnay barnaamij lagu magacaabo Ovulation Prediction Test, kaas oo aan ku faahfaahinay qaabka ay gabadhu uurka u heli karto iyadoo loo diyaar garoobay iyo qalab loo adeegsan karo. Qalabkan aan ka soo hadalnay Ovulation Prediction Test, su'aalaha ugu badan ee ka yimaaday waxay noqdeen sidee loo isticmaalaa qalabkan, waqtigeesa la isticmaalaa. Anaga oo horey uga soo hadalnay haddana waxaan isku dayaynaa in aan faahfaahino. qalabkan gabadha ama reerkuba waxay isticmaali karaan markii gabadhu ay dhiigga hesho tirada la tiriyo maalmaha uu dhamaado kadib la sii tiriyo tirada si toos ah loo sii wado habeenka 12aad ama habeenka 14aad wixii ka dambeeya ilaa iyo 17aad ayaa uurka la qaadaa. gaabkaas marka waxa keena kala duwanaanshaha waqtiga uu dhiiggu socdo, dumarka ay ku kala duwan yihiin iyo xilliyada uu yimaado. gabadha dhiigeedu uu socdo 3 maalmood ama 4 maalmood ayaa waqtigeedu soo hormara oo markii dhiigga maalinta heshay ay sii tiriso 1 2 3 4 uu ka dhamaado kadibna ay tirada sii wado habeenka 12aad qiyaastii meelaha iyo wixii ka dambeeya ayuu ovulationkeeda ay urqaadisteedu ay bilaabataa. markaas ayaa qalabkan la isticmaalaa marka oo hormone lagu magacaabo luteinizing hormone ayaa jirku soo daaya oo kaas oo qasba ovulationka ama keena in ovulation ay dhacdo kadibna urqaadistu ay diyaar noqoto. laakiin gabadha dhiiggeedu uu socdo ilaa 7 maalmood habeenka 14aad wixii ka dambeeya ayaa ovulation ku bilowdaa. marka qalabkan xilligaas ayaa la isticmaalaa. waxa uu soo muujiyaa marka calaamado lagu garan karo ovulationka iyo urqaadistu inay diyaar tahay. haddii aysan diyaar ahayn calaamado kale ayuu soo muujiyaa. markaana waxaan guda galaynaa qaabka loo isticmaalo qalabka iyo daqiiqadaha lagu haynayo kaadida dhexdeeda. waxa la baarayo horaan uga soo hadalnay oo waa kaadida oo luteinizing hormonka waxa lagu soo daynaa kaadida. marka hormonkaas ayaa kaadida laga baari doonaa. waxaan loo isticmaali doonaa Ovulation Prediction Test ama kit. qalabkaas oo aan hadda guda gali doono qaabka loo isticmaalo. daawasho waan ila dhamaadka muuqaalka. inta aanan guda galin muuqaalkii hore waxaad ka heli kartaa linkiga hoose si aad u sameyso baarista aad ku ogaanaysid in ugxaanta urqaadista ay diyaarka tahay. waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato kaadi oo ku soo shubato weelka loogu talagalay. marka sidoo kale aad soo diyaarsatid qalabkii aad ku baari lahayd. qalabku kala duwan yahay mar walba, dhowr nooc ayaa jirta. noocan hadda isticmaalayno waa qaabkan. noocyo kale ayaa jira. kan marka wuxuu soo muujin doonaa 2 xariijin, qaar wuxuu soo muujin doonaan ilmo wejigooda faraxsan oo qoslaya, halka qaarna ay u eg yihiin kuwa uurka lagu baaro xilliga uurka oo jiro oo aad khafiif u ah. marka qalabkan markaad furtid wuxuu leeyahay dabool afka ka saaran noocan hadda isticmaalayno iyo noocyo badan oo la mid ah. sidaad aragtid daboolka ayaad ka furaysaa. marka daboolka furtid weelka ay kaadidu kugu jirto ayaad dhex gelin doontaa. markaad weelka gelisid kaadi marka waxaa la rabaa duleeladiisa geli karta oo weelku kaadi fiican inay ku jirto kale. markaad gelisid waxaad u qabanaysaa seconds ayaad u qabanaysaa. way kala duwan yihiin marka qaababka loogu kala qabto. qaarkood 10 ayaa loo qabtaa, qaar 15 second, qaarna 20. marka kan waxaan qaban doonaa ilaa 20. marka waad tirinaysaa. markaad gelisid ayaa tirada bilaabaysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. inta marka dhamis kadib waad ka soo saaraysaa kaadida. daboolkiisii ayaad ku celinaysaa, meesha ayaad saaranaysaa ilaa iyo ugu badnaan 2 daqiiqo ayaad sugaysaa ama 3 daqiiqo. marka wuxuu ku soo muujin doonaa haddii xilligii urqaadista ugxaantu ay diyaar tahay oo kale 2 xariijin oo siman oo si fiican aad u arki kartid. markaas waxaa loo baahan yahay in howlgalkii lagu raadinayay ubadka haddii la siiyo qoyska la guda galo.
haddii ugxaantu aysan diyaar ahaynna hal calaamad ayuu soo muujin doonaa. marka qaar invalid ayaa jirta oo ah inuusan shaqaynin oo calaamad kale oo hal ah uu soo muujiyo oo dhinaca kaadida loo geliyo xaggeeda ay kasoo muuqato. marka noocyada qaarna sidaan soo sheegnay weji ilmo qoslaya ay sheegi doonaan. haddii uurka qaadista ugxaantuna aysan jirin wuxuu sheegi doonaa marka noocaas wejiga ilmaha tilmaanta bixiya kobaabin ebre ayuu sheegi doonaa haddii aysan diyaar ahayn ugxaanta. marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa. sidoo kale nooca yaryarka aad khafiifka u ah asagana sidoo kale 15 ama 20 second ayaa loo qaban doonaa. marka la geliyo sidoo kale labada xariijin ayuu soo saari doonaa. marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa. waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen kana faa'iideysan doontaan. waa mahadsantiin. qormadan iyo kuwo kale oo la xiriira caafimaad qabka qoyska iyo ciladaha soo wajaha hooyada uurka leh iyo xanaanada ay u baahan tahay iyo marka ay dhasho kadib 6 bil ay ugu horeysa nafaqada ay u baahan tahay carruurta waxaad ka daalacan kartaa buuggan la magac baxay qoys deeqe oo qoray Dr. Shariif Xidig. waa mahadsantiin.